midowga Yurub ayaa kordhiyay cunaqabateynta dhaqaale ee hadda jirta ee ka dhanka Ruushka muddo 6 bilood gudahooda iyadoo loo aaneynayo duulaanka qaaban ee dowladda Ruushka uu ku qaaday waddanka Ukraine. marka loo eego go'aankan ay maanta gaareen dalalka midowga Yurub, talaabooyinkan ayaa hadda socon doona ilaa 31 bisha Luulyo ee soo socoto sida uu ku dhawaaqay golaha midowga Yurub. talaabooyinkan waxaa ka mid ah xanibaadaha ganacsiga, maaliyadda, teknoolojiyadda iyo gaadiidka iyo kuwa kale. dhowr bangi oo Ruush ayaa sidoo kale laga saaray shabakadaha isgaarsiinta ee bangiyada adduunka. sidoo kale waxaa hoos loo dhigay qiimaha saliidda ee laga keeno dalka Ruushka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka oo ku qaaday Ukraine 24 bishii February sanadkii 2022, midowga Yurub waxa uu si weyn u balaariyay cunaqabateynta la saarayo dowladda waddanka Ruushka. Japan ayaa ku soo rogtay cunaqabateyn cusub xukuumadda Moscow. Japan ayaa xayiraysa hantida shakhsiyaadka iyo ururada kale ee Ruushka sida ay maanta qortay wakaaladda wararka ee Japan ayadoo soo xooganaysa xukuumadda Tokyo. tani waxay saameynaysaa 36 qof iyo 52 hay'adood oo ay ku jiraan siyaasiyiin, saraakiil, ganacsato iyo shirkado Ruush ah. cunaqabateynta dheeriga waxaa sidoo kale ka mid ah mamnuucidda dhoofinta. tan iyo bilowgii dagaalka, Japan waxay si joogto u soo rogtay cunaqabateyn dhaqaale ee Moscow oo waafaqsan siyaasadaha reer galbeedka. waxaa sidoo kale la xayiray hantida madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ee bangiga dhexe. dhanka kale, madaxweynaha waddanka Eritrea Abiy Ahmed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov oo safar shaqo ku jooga qaaradda Afrika ayaa maanta Khamiisa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo colaadda Ukraine. isagoo ka hadlayay dagaalka Ukraine, madaxweynaha dalka Eritrea waxa uu yiri nidaamkii kala dambeynta ee caalamiga ah waa uu fashilmay. waxa uu dalbaday dadaal isku dhafan oo lagu hortagayo oo lagula dagaalamo taariikhda gumeysiga iyo gumeysiga ee adduunka gelgelay. wasiirka warfaafinta Eritrea ayaa sheegay in wadahadalada ay ku saabsan yihiin xiisadda dagaalka Ukraine iyo xoojinta xiriirka labada dal. wadahadalada ayaa udubdhaxaad u ahaa xiisadda dagaalka Ukraine iyo kor u qaadista xiriirka labada geesoodka ah ee dhinacyada tamarta, macdanta, macluumaadka teknoolojiyadda, waxbarashada iyo caafimaadka, ayuu bartiisa Twitterka ku sheegay wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea. Eritrea ayaa ahayd dalka kaliya ee Afrikaan ah ee u codeeyay qaraar qaramada midoobay bishii Maarso ee sanadkii tagay ee 2022 lagu cambaareynayay duulaanka Ruushka ee uu ku qaaday Ukraine. Lavrov ayaa ku tagay dalka Eritrea lugtii ugu dambeysay ee socdaal labaad oo Afrika ku tagay muddo 6 bilood ah, isagoo sidoo kale ku tagay safar shaqo dalalka Angola, Koonfur Afrika iyo Eswatini, isagoo kala hadlayay xoojinta xiriirka ka dhaxeeya dalka Ruushka wadamada qaar ka mid ah qaaradda Afrika.